الرحمن الرحيم ardayda casharada cookbooks casharadeenii baan isku sii guda jirnaa dhammaan ardayda marka casharadeenii waxay sii socdaanba waxay hadda sii marayaan inaan sameeyno casharkii ahaa waxa inoo socdo oo ahaa aan ku qaadanayno cookbooks waxaan maraynaa marka casharkii inaan deynta soo celin karno oo payment casharkii hore aan soo qaadanno wuxuu ahaa inaan dadka deyn lagu yeelanayo deynta la rabaa marka dib in looga soo celiyo sidee ma marka ku dhici kartaa in deynta inaan ka soo celino iyo habka aan u marayno inaan ku baranayo rabnaa casharkan marka casharadii taxanaha Somali Star Online Training ayaan ku baranaynaa marka casharkeeni waa kii sida payment-ga aan soo celin lahayn ayaan soo gudgalayaa waana step by step dhammaan ardayda marka iyo dadweynaha jecel casharada cookbooks si tartiib ah ay ku heli doonaan ayagoo ka faa'iideysan doona marka casharadan step by step marka casharkeeni aan soo gudgalayaa oo maanta inoo socday oo kala duwanaa marka cashar dhamaantu waxay noqonaysaa receive payment markaan dooranayno halkan waa ka soo dooran karnaa ama customer inaan tagno waxaan dooranaynaa receive payment labada option way inoo banaan yihiin marka haddii halkan aan isniraano ka doorta payment-giini waa ka dooran karnaa haddii halkan aan rabnana waa ka soo dooran karnaa labada wayba way inoo furan yihiin menu barkeena inaan ka soo kicino oo aan ka soo galno ama inaan ka soo galno iconiska oo ah home ka dul saaran iconiskana waa ka soo kicin karnaa waxaan kale ka soo gali karnaa customer inaan tagno hoos baan soo bixinaa waxaan dooranaynaa receive payment marka casharadeenii taxanaha oo Somali Star Online Training ayaa inoo soconay step by step marka waa kan payment-ii meeshaan ka qaadi lahayn customerska oo deynta lagu leeyahay halkan ayay soo gudgalayaan halkan ayaan furaynaa waana ka soo helinaa cayl lacag baa lagu leeyahay Faadumo lacag baa lagu leeyahay waa customerka deynta kuwa lagu leeyahay kuwa aan deynta lagu leeyahay halkan ma imaanayaan marka magacii haddii qoraast ku qortid uu soo baxaya haddii halka aad dooratidna waa helaysaa cali deyn baan ku leenahay marka cali lacagta lagu leeyahay invoice 2 waxaa lagu lahaa 40 baa lagu lahaa marka sidee uga qaadanaa weeye 40kii inaan ka qaadnaa rabnaa marka halkan tick baan saareynaa haddii ay lacagtan tahay ay cash tahayna cash baan sheegin inaan kaga qaadano haddii jeeg aan kaga qaadano oo markuu soo galay jeeg aan ka qaadanana jeeg baan kaga qaadanaa labada way inoo banaan tahay cash iyo jeeg saan uga qaadi lahayn marka customer payment waa ay fududahay inaan sameyn karno aan deynta ka qaadi karno shaqaalii qofkii customerka ah markuu urid ka soo galo waxaan fiirinaynaa payment-ga lagu lahaa halkaan aan dooranaynaa halkaan waxaan ka ogaanaynaa customerska payment-ga lagu leeyahay marka payment-ga customerka doorano tick baan saareynaa cash baan uga qaadnaa leenahay waa dooranaynaa cash markaan doorano waxaan leenahay save and close halkaan waxaa ka soo baxay balance-ga customerka lagu leeyahay customerkan 40 baa lagu leeyahay marka save and close baan leeyahay una payment-giisa ayaa customerkii looga qaaday si fudud marka customerkii hadda payment-ga laga qaaday haddii aan ku soo noqdo is iraahdo miya payment kale lagu leeyahay waan fiirin karaa cali haddaan soo qabto lacagtii waa uu bixiyay waka wax lagu leeyahay halkan balance-giisa waa 00 lacagtii waa laga qaaday customer kale oo lacag aan ku leenahay halkan ku jira Faadumo lacag baan ku leenahay invoice 1 bay ahayd waxaa lagu leeyahay 12500 baa lagu leeyahay marka lacagtan haddii Faadumo ay doorato in qayb ay bixiso qaybna lagu reesteeyo waanu yeeli karnaa oo barnaamijkeena wuu noo ogolaanayaa customerka deynta lagu leeyahayna amount-giisa halkaasaan ku qoraynaa iska ilaali halkaana waxaa ku qoran taariikhdii halkaana reference baan raacin doonaa halkan customer balance-gii lacagta lagu leeyahay halkan ka soo muuqan doonto marka casharadeenaan step by step anagoo u baran doono si tartiib ah waxaa la rabaa ardayga inuu ka faa'iideysto oo uga faa'iideysta casharadan si furan oo tartiiba si degan inuu ku qaato haddii casharadan la boobsiyo waa ardayda waxaa ku dhacaysa jahawareer marka customer halkaan ka soo shaqaalaha qofka customerka aan lacag ku leenahay iraahdo halkaan ka soo dooranaynaa marka halkaan tick baan siinayna markaan lacag ka qaadayno lacagta halkaas soo wada galaysa aan ka qaadaynaa laakiin haddii ka waran halkaan aan ku soo qorno lacagta lagu leeyahay waa 12500 haddii ay tiraahdo waxaan hayaa kaliya lacagtan kala bar baan bixinaynaa waan ka qaadi karnaa haddii kale oo ay tiraahdo 12 baa bixinaya 500 aan lagu reesteeyo 500 baa lagu reesteynaya waana baranaynaa marka waxaan imaanayaa amount payment waxaan ku qorayaa 12500 waxaan rabnaa inaan kaga dhigno reesto oo aan ku barana tan marka 12500 marka iraahdo 12500 baan qorayaa ila soco marka 125kaas baan qaadayaa tick baan saarayaa markaan qaadayo lacagtana cash inaan ku qaadayo iyo check inaan ku qaadayo waa kala dooranayaa cash baan ku qabtaan leeyahay 12500 baa lagu leeyahay marka 125 baan ka qaadayaa 500 reest aan bay ugu hareysaa waan doorta marka 125 baan ka qaaday 500 baa lagu leeyahay qofta la yiraahdo Faadumo receive payment baan soo galayaa Faadumo aan dooranayaa lacagta lagu lahaa halkaas ku cadaanaysa Faadumo marka 500 baa ku harsan oo net waa ka balance-geeda 500 kaliya ku harsan
faadum waxay bixisay 12 iska bixisay waxa ku harsan 500 halkaas aan balance-ga customer halkaas ku soo qormaya marka 500 hadaad ka qaad istiraadid tig baa saaraysaa oo kaliya halkaan ku qoraysaa lacagtii lagu lahaa oo customer halkaas oo amount-kiisa halkaas ku soo qoraysaa marka 500 marka qortid halkaas tig baa saaranaysaa cash iyo check-na uu qaadina waa kala cadeynaysaa haddii aan istiraado check baan dooranayaa haddii aan uga qaado cashna cash baan dooranayaa marka faaduma 500 waa ka qaadnay wax lagu leeyahay male haddii aad istiraado faaduma ya hadda lacag lagu leeyahay oo aad dib ugu soo noqoto waa ka waayaysaa halka ka helmaysa faaduma waa 0 waa iska masaxday balance lagu leeyahay halka ma jiro marka casharadeenii step baan u baranaynaa annagoo noo soo socdaan sida biilasha u bixin lahayn oo funderska u siin lahayn annagoo inoo soo socdaan sida customerkii u sameyn lahayn annagoo noo soo socdaan inaan funderskii set up gareyno annagoo inoo soo socdaan employee inaan set up gareyno casharadeenii step bay u soconayaan marka kaliya casharadan step inaan u qaadano oo ku qasbannahay sababtoo ah waxaan rabnaa taako inaan u barano si fudud hadaan u baranayno waxaa qasaba inaan tartiib u barano oo tartiib cashirkan aan u qaadano haddii kale wuxuu noqonayaa cashirkan isbarbaryaac waxaan ka faa'iideynana ma jirto marka reportkeeni baan fiirinayaa customerskii iyaan fiirinayaa iyo lacagihii lagu lahaa customerkii marka waa kuwan customerkii report markaa tagtid customer baa imaanaysaa customerka waxaa details baan fiirin doonaa balance-ga lagu leeyahay ama si summary customer balance summary baan dooranayaa customerka lacagtii waan ka wada qaaday oo wax customerka hadda lagu leeyahay ma leh haddii aan isiraado customer balance summary fiiri wax ugu jiraan ma leh halkaa wax lagu leeyahay ma leh waan arki doonaa customerskii waa ka 000 lacag laguma laha haddii customer lacag lagu leeyahay halka customerka lacagta lagu leeyahay ayaa imaanayso marka waxaan tagayaa reportkeeni waxaan fiirinayaa company-geeni halkii dhaqdhaqaaqiisa uu marayo waxaan tagayaa profit and loss-ka lacagaha nagu soo dhacayeen waa uu fiican yahay company-geeni net income fiicanna wuu haystaa wuxuu iibiyay alaab fara badanna wuu iibiyay company-geeni haddaan fiiriyo iraahdo akoonka qasnadeena lacag ku soo dhacday waxay dhan tahay 12,825 cost of goods waxa ah badeecada lacagta ku fadhiisay waxa noqonayso 10,210 bay noqonaysaa faa'iidada aan helnay gross profit-kana waxay noqonaysaa 2,615 faa'iido ayaan helnay marka step casharada aan u baranayno waa sidaas walaalayaal waana ku soo dhawaanaysaa Somali Star Online Training iyadoo casharada inay tartiib ay nagu soconayaan casharadan looma baahna in la boobsiyo waana casharo accounti ah mana la boobsin karo haddii la boobsiyo ardayga uu ku wareerayaa marka hadba waxaan soo qaadanaynaa cashirka ku xiga marka Etude Cookbook Enterprise Solution version-ka ku qaadanayna waa version-nada ugu fiican baan ku qaadanayna kuwa ugu muhiimsan oona kuwa ugu cusub marka casharadan step-ka aan u qaadanayno waa muhiim jiddan marka ardayga hadduu is yiraahdo casharadaadii cashir baa ka soo horeeya cashirkan kii ka soo horeeyay waa inaad soo aragtaa lesson 5 marka aragtaan lesson 6 ayaan tan ku qaadanaynaa casharada marka step bay nagu soconayaan walaalayaal waxaan soo gudgalayaa marka waxaan soo gudgalayaa page-keena aan ku qaadanayno Cookbooks Enterprise Solution casharada step-ka aan ku qaadanayno waana Somali Star Online Training iyadoo cashiro kala duwan aan qaadan doono walaalayaal marka tartiibtaas ayaan ku baranaynaa hadda cashirkii 6aad baan qaadanay cashirka 7aad cashirka 8aadna way noo imaan doonaan anagoo ka faa'iideysan doona cashir walbana macna gaar ah ayuu wataa sidaa darteed marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah